madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ayaa inta ay socdaan tartamada olombikada ee xilliga qaboobaha waxa uu la kulmi doonaa wafdiga kuuriyada waqooyi oo ay ka mid tahay gabar la dhalatay hogaamiyaha waddankaasi balse wasiir ka tirsan kuuriyada koonfureed waxa uu sheegay in arrimo muhiima aan laga hadli doonin waxyar ka hor tartamada kuuriyada waqooyi waxaa dhoolatus military ku qabtay Pyongyang madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka oo ku sugan kuuriyada koonfureed waxa uu sheegay in aysan aqbalayn in maamulka Kim Jong Un uu dacayad u adeegsado tartankaasi oo berito Jimcaha furmaya Cusmaan Cabdi Xasan ayaa faahfaahinaya imaatinka kooxda kuuriyada waqooyi uga qayb galaysa olombikada qaboobaha koonfurta waa astaan weyn kasoo qaybgalkooda wuxuu suuro galay markii Pyongyang iyo Seoul ay gaareen heshiis taariikhi ah oo tani u gogol xaaray labada dal ayaa markii ugu horreysay barafka ku wada ciyaaraya ciyaartii jaabaha oo dhacaysa Axadda way wada gaardin doonaan xafladda furitaanka Jimcaha ciyaartoyda barafka ku ciyaara Yom Tae-ok iyo Kim Joo-sik ayay rajo weyn ka qabtaa kuuriyada waqooyi inay bilado u keenaan awoodda olombiga waxa ay rajo dhab ah gelisay mustaqbalka ifaya ee qof kasta oo ku nool mandiqada Kuuriya dalka kale ee sida weyn uga muuqda ciyaarahan waa Ruushka 169 Ruush ayaa ka qayb galaya tartanka kuwaasi oo la fasaxay kadib markii ay guddiga olombikada mamnuuceen baaris kadib toddobaadkii hore maxkamadda isboortiga ayaa taageertay racfaanka 28 ciyaartoy balse guddiga olombikada ayaa diiday qaarkood inay ka qayb galaan Pyongyang ciyaartoyda Ruushka ee la fasaxay waxa ka dhex jira dareen diidmo qof kasta oo xiiseeya isboortiga xitaa haddii ay qaar yiraahdaan ma aadayno way og yihiin dalkii aan ka nimid calanka iyo astaanta qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha culays weyn ayay soo mareen si ay ciyaarahan uga qayb galaan sida Danny Morrison oo Kanada u dhashay shalal ayaa ku dhacay lugna wuu ka jabay noloshayda oo dhan waxaan ku qaatay olombikada waad aadi kartaa sida aniga oo kale wax kasta oo aad la kulanto Helen Knight oo barafka ku dheesha Mareykanna ah ayaa sheegtay in gabdhaha ciyaaraha fudud ay la kulmaan culays sanado ayay igu qaadatay inaan fahmo inaan lahaasho u baahanahay waxaan doonayaa inaan farxo kuna kalsoonaado midabkayga jirkayga waa jirkayga tooshka olombikada oo ku dhow halkii loogu talagalay ayaa ciyaartoy kasta ee ku sugan Pyongyang uu rajaynayaa inuu muujiyo awooddiisa tartanka